soo dhawaada asxaabi waxaan isla miilcsan doonaa goosgooska laga soo bandhigay filimka weyn ee Adi Brush kaas oo uu soo saaray aktarka weyn ee Bravaz waana qayb labaad ayaan isla leeyahay filimkan waxa uu daba socdaa filimkii hore ee Tanhaji ee isla sameynay Saif Calaqaan iyo Ajay Devgan isla directorkaas ayaana soo saaray kana marka hore waxaan ugu cudur daarnay asxaabta ku xiran channelkeena in aan soo dhigin isagoo af Soomaali ah sababo jira awgood ama in la xadiday in muuqaalkaas halkan la soo geliyo laba arin ayaan rabaa in falanqaynteeda uu kala qaado mid waxaan kaga hadlayaa fikirkayga iyo sidaan u arkay filimkan mid kale labaadna waxaan rabaa in kaga hadlo waxa uu ka hadlayo filimkan hordhaca filimka sida aan ka arkay awoodda la siiyay atooraha iyo sida uu hadlayo markii aan arkay iyo sidoo kale intuu Saif Calaqaan oo la leeyahay jiniyalka ayuu madax u yahay ama uu wataa waxa ii soo baxday meeshaas in ay qeyrka soo soconba dhiiqa in lagu isku geli doono ama filimka lagu ciibo doono waxyaabo aan fiicnayn runtii ay ku soo bandhigayaan gaaladan waa dhagar badan yihiin waxa laga yaabaa in Bravaz ay wax kale ka wadaan ma fahamteen marka meeshaan waxa waaye saaxiib waxaan qurux badnayn oo la soo fasiri karin inay ka imaadaan laga yaabo sababtoo hadaladiisa markaad fiiriso qaabka uu hadlayo wuxuu leeyahay waxaan rabaa dhammaan dadka dhan inaan cadaalad u sameeyo mar inaan dadka dhan cadaalad u fala ayaan rabaa kamid markuu leeyahay yani waxa waaye wuxuu iska dhigaa qof oo adduunkaba asaga maamulayo kala ma fahamteen marka meeshaan waxa ka soo socda wax aan is leeyahay raalintii marka aan ka hadlo inkastoo aan sii hordhici karin laakiin qaabka hadda googooska sidaan ka arkay hadallada iyo qaabka ficilka meesha uu socday ninka awoodiisa oo isticmaalayo waxaas oo marka la isku daro waxa ku soo baxaysa meesha natiijo xun inay ka soo bixi doonto waan qurux badnay filimkan Saif Calaqaan markaas talada waa ay ka warartaa wala yaabana ninkaasni waa iska sibxanaa sanad kasta waa sibxado waa qaldamo loo ku leeyahay sababtoo hadda kortan Haji markuu uu sameeyay wuxuu waa la u gaaday aniga afarahan inaysan ahayn muumalinin walaalayga lagu caawisanay filimkan muumalinin haddana qaabkii oo kale ama barnaamij noocaas oo kale la soo agaasimay isla sidii asaga la soo dhaxgalshay marka ninkan waa ka yaabo aniga nin go'aan leh waxa aan ku haboonin iska reebi kara ama iska diidi kara waa uu naqal leeyahay haddaba filimka qarash fara badan la gashay 500 karoor lagu qarash gariyaa lagu leeyahay filimka magaciisa waa Adi Brush oo laga wada ninkii kaligii ahaa marka lagu dhaafay magaca ayaa barta shaki ku gelinay ninkii kaligii ah muxuu noqon karaa qofka kaligiisa waxa uu dhahayna bal fiiri haddii aad daawatay goosgooska marka uu soo galay atooraha isagoo biyaha ka soo dhaxbay waxa uu leeyahay haddii dhulka dilaaco ama cirka igu soo dhaco gacanteeda wax sharta inay celiso wax ka hor istaagayo ma jiraan ayuu leeyahay gacmaha cadaaladda soo gacantiisa ka wada xulay gacmaha cadaaladda wax ka hor istaagi kar ma jiraan inay sharta celiyaan kadib wuxuu leeyahay waan imaana waxaan u imaanaa in aan burburiyo dadka leh 10 waji dadka leh ama dadka la wajila aan u naqano kale inaan burburiyo Saif Calaqaan ka wadaa oo kale oo dadka isbeddelka badan inaan baabiyaan oo imaana uu leeyahay waan imaana haddana waxaan u imaanaa uu leeyahay inaan dadka dhan cadaalad u falo dadka dhan inaan simo oo cadaalad u sameeyo ayaan u imaanaa uu leeyahay haddana marka meelahaas oo kale waxaad ka caabsanaysaa meeshaas oo kale sibxasha taalo qof kasta ma ka hadli kartaa arrimahaas oo kale laakiin waan arki doonaa wixii ay kulli soo bandhigaan ayay ku noqon doontaa kulli wadamo fara badan oo iska diidi doonaa hadii wax noocaas oo kale barnaamijka sidaan u maleynayna duu noqdo ka kaca lagu kala yaacaa meeshaas bal adiga raaligaaga noo reeb sidoo kale muuqda filimkan haddii aad daawato haddii aadan daawan magaciina Facebook aan soo raadiyay halkaas ayuu la isagoo af Soomaali ah